ciidamada amniga Puntland PSF ayaa 14 bishan waxa socdaal ku saabsan oo kurgalida xaaladda amni ay ku tageen degmada Ofen ee gobolka Bari si ay ula socdaan dhaqaaqa kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daesh oo ku dhuumalaysanaya dhulka buuraleyda ah ee gobolka sidoo kale ciidanka PSF socdaalka ay ku tageen degmada Ofen waxa qayb ka ahaa gaarsiinta agab waxbarasho oo ay madaxda iyo ciidanka amniga Puntland PSF ay ugu talagaleen jiilka soo koraya ee haatan wax ka barta degmada Ofen in nawaaxigeeda gaashaan la sare Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo kamid ah saraakiisha ciidamada amniga Puntland ee PSF ayaa waxa uu ka warbixiyay socdaalkii ay ku tageen degmada Ofen iyo agab waxbarasho ay ciidanka degmada ugu talagaleen بعد السلام odayaal saaka way soo booqanay waxaan idin ku nimi halka keenana aan ogaano horta marka koobaad inaan soo salaano oo degmada aan nimaadno Ofen annagu aysan ahayn markii koobaad aan degmada nimida hore aan imaan jiray marka hore waxaan rabnaa inaan ogaano xaaladda amniga ee degmada ka jira aan ogaano kurgabo warbixin aan naga siisaan marka labaad degmada waxaan u wadnay kuraas aan u wadnay iskuulaadka waxbarashada degmada aan u wadnay kuraastaas oo ah 76 ka kooban iyo miisaskooda waxaan rabnaa inaan ku wareejiyo gudoomiyaha degmada iyo maamulka waxbarashada inaan naga wareegtaan intaa kadib Ofen ma aha markii koobaad aan wax sheegno waxaan filayaa marar badan baan nimid degmooyinka aan wax geyno oo ka tirsan Puntland waxay ku jiraan degmooyinka koobaad ay ku jiraan waana mar walba la soconno ama xagga caafimaadka ha ahaato ama xagga waxbarashada ha ahaato ama ha ahaato iikeen arrimaha bulshada oo dhan inaan mar walba ogaano xaaladeeda la soconno waxay ku jiraan degmooyinka koobaad degmada Ofen xiliyo badanna waa nimid waxyaabo fara badanna waa keeno ama dawa ha ahaato ama ha ahaato iikeen kuraas hadda kahor waa keennay dawo waa keennay waxyaabo fara badan baan u keenay degmada ciddii wax yar kuu keenta wax badanna ku siisa waxaa muhiim ah inaan mar walba degmada ogaano oo degmooyinka oo dhan aan la soconno degmada Ofen keliya ma ahana degmooyinka oo dhan meel badan wax geynaa sidaas darteed marka labaad degmadu soo booqashaan soo booqano si fiican baan noo soo dhaweysan waan inta mahadcelinayna aad baad mahadsantihiin ma badinaya hadalkayga anigu mar walba shacabka Puntland waxaan diyaar loo nahay inaan ka difaacno cadowga marka koobaad marka labaadna wixii aan ka caawin karo karaankayaga inaan ka caawino waxyaabaha aan ku caawino dadka shacabka oo reer Puntland waxay u badan yihiin contribution aanu ka aruurino ciidanka kaasoo ciidanka PSF oo salarigooda ka jaro mushaarkooda oo ay ku caawiyaan dadkooda shacabka kana difaacaan cadowga mar walbana waxay diyaar u yihiin mar walba waxa ciidanka PSF diyaar u yahay har iyo hameyn inuu difaaco cadowga Puntland inuu ka difaaco guud ahaan gaar ahaan ciidanka Puntland abaaruhu markay soo wajahaan reer Puntland ama dawlad goboleedka Puntland waa ka caawinaa ciidanka PSF-na wuxuu ka jaraa salarigooda si uu uga caawiyo shacabkiisa مسؤولينta maamulka degmada Ofen iyo waxgaradka degmada ayaa saraakiisha ciidamada PSF u sheegay in nabadgelyo ay ka jirto degmada Ofen in waaxigeeda waxaana ay soo dhaweeyeen booqashadii ay degmada Ofen ku yimaadeen ciidanka amniga Puntland ee PSF iyo agabkii waxbarasho ay soo gaarsiiyeen sidoo kale madaxda iyo ciidanka amniga Puntland PSF waxa ay ugu mahadceliyeen daawooyin ay hore degmada u soo gaarsiiyeen taa oo ay sheegeen inay dawooshay baahi badan oo ka jirtay degmada iyo waaxigeeda kuraastii iyo qalabkii waxbarasho ay noo keeneen PSF oo ah Puntland Security Force waa hay'ad aad iyo aad aan u malaynayo inay wax badan ka qabatay dhanka amniga dhanka arrimaha bulshadana bariyahan si fiican faraha ugu la jirtay marka maadaama aan ka tirsanahay anigu arrimaha bulshada oo bahda waxbarashada ka mid ahay guud ahaan أنا أقول لك أفكار بعض الأخبار وحن الشيء وحن الدين لا وحكم هتنتهي وحال موقعين الحمد لله رب العالمين دوانا لوك يعني دوانا لوك يعني ماشي أنا سيدا وقتين عرس ويا قرع على بالي هذا وبين بهاش هو سوق بدنته دوانا بهاش هو سي ما شاء الله أكون عادي أدبان وبقول كبس ديت دودي نلوك يعني إذا تكون أنفعه
ويران مركي نروك هنا ذهبين جوبي أهيد جوجا كنتم قفوا عند بهاشو هل كسر وذا كريستال كسر صون كنتم قفوا عند والله ما الدورين بحسيس بالغون نقد عيدنا وكمان دمان الحمد لله إلههم هل لكن حرق جاز هذه يشير تايرة لقرب تاجيهن بشو سومريد كارهان دقمة أوفين دور جورا ورانا إن شاء الله دي وحي داوين يحيبنا بعفماتك كقبتين عندنا واحد رجينا إن شاء الله نكح برشادنا ما أنتنا إن شاء الله وانو سفر كنقول إن شاء الله ما أنتنا كهينا واحد رجينا إن شاء الله أنت إسكسي بدي سارين إن شاء الله deegaanka markaan idinka warramo sida xaqiiqada anigu hadda amnigana dhinac baan ka ahay shacabkana dhinac baan ka ahay amniga dhinac baan ka ahay oo amniga wax shida ah kama jirto degmada Ufeyn derbiga doonta saan karta iyo tuulooyinka saan loo koob waray wixii aad noo keenteen kuraastaas saskaasna wada ku guddoon idinku aad baa ugu mahadsantihiin wixii hore ugu keenteen iyo waxa aad noo keenteen aad baa ugu mahadsantihiin ma ahan markii ugu horeysay ciidamada amniga Puntland PSF ay deeq gaarsiiyeen degmada Ufeyn waxaana horey sidan oo kale ciidamada PSF deeq kala duwan ay gaarsiiyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Puntland